Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xidhan kanaalka Hoyga Bulshada kusoo dhawaada mowduuceena maanta. Haddaad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo saar, mowduucana haddaad ka heshay like noogu dhufo. Saaxiibayaal sidoo kale waxaanu leenahay Facebook page iyo sidoo kale Instagram, Twitter. Mowduucyada haddaad ka heli weydaan kanaalka Hoyga Bulshada waxaad ka heli doontaan qaybahaas. Waan mahadsantihiin saaxiibayaal. Sheeko cajiib ah oo xigmad ah, wax badanna aad ka faa'iidi doontid, waxna kala dhex bixi doontid. hadday ku soo martay fursadan oo kale, fursadan maxay tahay? Waa fursad cajiib ah. Fursadan gabadh ayaa oday wiil siiyey, waxauna meheraan wiilkii uga dhigay intuu u khafiifiyey $1, balse markuu guursaday wiilkii maxaa dhacay? Ku soo dhawow mowduuceena dhammaystiran. fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin, fadlan subscribe noo saar, kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka Hoyga Bulshada. Waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا. nin ayaa gabar reer ka soo doontay. qiimayn dheer kadib gabadhii aabaheed ayaa waxa uu ninkii u arkay uu mudan yahay in gabar la siiyo oo uu dhaqan karayaba. kadib aabihii gabadha ayaa ku yidhi, ninka gabadhayda waan ku siiyey ee iska bixi meherkeeda oo $1 ah, sidaana iiga guddoon. bal ka waran adigagan muuqaalkan daawanaya, hadday fursadan ku soo mari lahayd, waan hubaa qaarkiin inaad ka faa'iidaysan lahaydeen, xagga qaar kalena ay ku fashilmi lahaayeen. balse odaygii waxauu sii raaciyey, lacagta ma daneeyo ee waxaan gabadhayda u rabaa nin wanaagsan, waana adiga oo kale ee gabadhayda mas-uuliyaddeeda ka soo baxa. hase ahaatee ninkii la siiyey gabadha ayaa ku bilaabay maalmo kadib markii uu la aqalgalay kaftan badan, isagoo dhahaya adiga iyo waxaa isku qiimo ah cabitaanka loo yaqaano Pepsi, Coca-Cola. waxa uuna u raaciyey, labadiinuba waxaad tihiin $1 oo keliya, adiga meherkaaga wuxuu ahaa $1. walba uu kaftankaas ku dhaho, gabadhu aad ayay uga xumaan jirtay, laakiin ma aysan muujin jirin dareenkeeda dhabta ah. kama uusan waantoobi jirin inuu ka daayo hadallada xanafta leh, siiba Pepsi iyo $1 waxaan isgelayn. maalmo dheer kadib gabadhii ayaa ka codsatay ninkeedii inay booqasho u aado qoyskeeda si ay ula soo joogto maalmo kooban. kadib gabadhii ayaa aabaheed sheekadii uga dhacday oo u sheegtay wixii jirayba, waxayna uga timi gurigeeda, sheegtayna inay maalin walba uu ku dhaho waxaa meherkaagu la qiimo yahay cabitaanka Pepsi, Coca-Cola oo ugana jeedo yasid. aabihii gabadha ayaa aad uga xumaaday kaftanka aan wanaagsanayn ee gabadhiisa ku yidhi, waxauna ku yidhi iska joog halkan, ha ka bixin guriga, garhba la tusaayay. hadduu sidaas kugu yidhi ninkan wanaajiyey. ninkii ayaa maalmo kadib isagoon dheg la qabta lahayn yimid, isagoo raadinaya xaaskiisa. muddo ka soo raagtay, hase yeeshee aabbihii gabadha ayaa ku yidhi, waan u baahanahay keliya hadal badan uma baahniye, tolkaaga oo dhan si aan u marti qaado gurigaygana isku kakan oo isu habar wacda. maalinkii xigay ayaa waxaa yimid tolkii oo dhan, laakiin waxaa la yaabay markii aabbihii gabadhaas uu keenay tolkii oo dhan 3 dhalo cabitaanka loo yaqaano Pepsiga. gabadhii aabaheed oo tolkii ninka la hadlaya ayaa ku yidhi, walaalayaal, gabadhayda markaan idin siinaya waxaan idinka siiyey 1 dhalo cabitaanka Pepsiga ah, haddana 3 dhalo ee Pepsiga qaata, gabadhaydana waan ceshtay ee waad mahadsantihiin. tolkii sheekadii lama aysan socon, laakiin markii loo sharaxay ayay iyagoon xanaaqeen oo ka xumaadeen gabadha sida uu la dhaqmay ninkaas fooshucun. aabihii gabadha ayaa kitaab ku maray in uusan gabadhiisa bixinin ilaa ninka uu bixiyo 300,000 oo meher oo cusub. cajiib. wallaahi ninkaasi waa iska laaftay. waxaan markiiba soo xasuustay intaan diyaarinayay mowduuca mahmaah Soomaaliyeed oo ahayd abaal dad galaa badan, dad gudaa sayar. ninkii waxaa qasab ku noqotay inuu dhiibo $300,000 maxaa yeelay gabadha aad ayuu u jeclaa. waxay sheekadii socotaba markii lacagtii qayb la bixshay, qaybta kalena ballan la kala galay, ayaa gabadhii gurigeedii lagu soo ceshay. markii ay gurigeeda ku laabteen, kulaha maasha Allah, quruxley ayaa tahay, waxaad la mid tahay warshada Pepsiga camal. shirkadda Pepsiga macnaha waxa uu ka wadaa qaali ayaa tahay, waayo lacag aad u badan ayaaban kaa bixiyey, boqorad ayaa tahay, geenye ayaa tahay. hadalla noocaasa ayuu gabadhii markii ugu dambeysay kusoo gabagabeeyey. waa ninkii $1 oo meher ah gabadhiisa lagu xidhay, balse markii dambe meher aad u badan la duldhigay. ninkii soo seexa laga waayo, soo jiifsaa laga helaa. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa sheekadii. intaan ku kulmi doono mowduuca lamida, saaxiibayaal, fii amaanillaah.